maxkamadda gobolka Hawd ayaa maanta xukun burburina iyo baabi'ina ku fulisay 293 litir oo khamriya. Garsoore Xasan Gahayr ayaa ku dhawaaqay xukunkaasi. Madda la horkeenay maanta taariikhdu tahay 17 bishii 3 2025 khamri dhan 293 xabo oo ah kaayna hor yaala ee dirinjiina. Haddaba maxkamaddu markay aragtay aayadda 9aad iyo 11aad ee suuratul Maa'ida maxkamaddu markay aragtay xeerka la dagaalanka mukhaadaraadka xeer lambar 12/2021 qodobkiisa afraad farqadiisa koobaad oo ah ganacsi la doonayo in dalka la soo geliyo khamriga dhan 289 maxkamaddu waxay u cuskatay qodobka 400 qodobka 2021 farqadiisa afraad qodobkiisa farqadiisa labaad in la gubo dhammaan khamriga in hor yaala oo la baabi'iyo saas ay maxkamaddu maanta taariikhdu tahay 17 bishii 3 2025 ay xukuntay in la baabi'iyo maxkamaddu maadaama ciidanka amniga iyo la dagaalanka mukhaadaraadku ay ka hawl galeen in ay soo qabtaan khamriga in hor yaala. intaasi kadib waxaa fulinta iyo jajabinta khamrigaasi ka soo qayb galay maayirka degmada Balugubadle Maxamed Cabdi Maxamed Shiine, xogayaha degmada Balugubadle Saalax Maxamed Idris, xeer ilaaliyaasha gobolkaasi Hawd, maamulaha cashuuraha bariga ee gobolka Hawd, saraakiisha ciidamada booliiska ee gobolkaasi Hawd iyo gudoomiyaha gobolka Hawd Maxamuud Xasan Saleebaan Doob, waxaana dhammaantood ka mid ah hadaladoodii. halkan waxaan u joognaa maanta burburinta aan maxkamadda hor keenay dhan 293 xabo taasoo dalka loo soo geliyay si dadkeena loogu baabiyo caruurta iyo dadkeena magaranaysa aqoonta si loogala dagaalamo ayaa waxa aynu arkayna loo soo geliyay. marka waxaan maxkamadda hor keenay 293 litir oo dirinjiina, waxaan maxkamadda ka codsanay in ay go'aan ka gaadho go'aankana uu yahay in la baabiyo eedaysanayaashii khamrigan soo geliyay dalka waa baxsadeen lama hayo wax eedaysanaa laguma soo qaban, waxa laga soo saaray dhir iyo kayn iyadoo lagu xaseeyay. ugu hawlgalnay annaga iyo qolada la dagaalanka mukhaadaraadka iyo ciidanka ayaan war sugan markii aan ku baxnay sidaasaan ugu soo qabanay isagoo meel kayn cidla lagu xaseeyay kaasoo la doonayay in maalinba in bil la geliyo Hargeysa lagu geliyo. sidaa darteed ayaan ku soo qabanay. waxaan u digayaa wax u sheegayaa dadka mukhaadaraadka iyo waxa aan ka shaqaystay doonaya xuduudda inay u soo geliyaan si dhoomasho ay ugu soo geliyaan xuduudda mukhaadaraad iyo khamri iyo xashiishad iyo wixii kontrabaanaba annagoo la socona wixii dhaqdhaqaaqa xuduudda ka soo gala waxaanu ka qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan. weynaha deegaanka gobolka Hawd xuduud bay ku taallaa maalin walba waxa maraya kontrabaan baan joogtay nolosha bini'aadmiguna waa safety for life in la safkarayo waxaan leeyahay darooga iyo kontrabaan kaba aad loo ilaaliyo dadka waxaanu ka codsanaynaa meel walay joogaanba inay notiiska soo siiyaan ciidamada booliiska xafiiska dowladda xafiiska gobolka maxkamadda inay soo siiyaan waa loo gobolka tuuga soo galaya. bishii Ramadaan ay tahay 17 ula dhiganta bishii Maarch 17keedii 2025 waxa maanta maxkamadda gobolka Hawd ay soo bandhigtay in la burburiyo khamrigan ay soo qabteen ciidanka booliiska. waxaan uga mahadnaqayaa ciidanka booliiska oo marka horeba tiro yar laakiin tayo badan leh, gaadiidka ay haystaana ay aad u yar yahay oo laba gaari qulata ay yihiin. xuduudka aynu gobolka Hawd ka kooban yahayna 7 magaalo ay xuduudka soo teedsan tahay. intaa way ka hawl galaan, waxay haddana hadhiya habeen ay heegan ugu jiraan si ay u soo qaban lahaayeen anti kontrabaanka ama kontrabaanka. waxaan ognahay sida ay khamriga u soo qabteen inaan dalkeena hub la soo gali karin. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. haddii ciidanka la soo kordhiyana kolley xuduudka inta laagin magaalo kasta oo xuduudka ku taala inaanu ciidan dhigno oo rug ka sameeyno ayaa muhiim ah si inta labada magaalada u dhaxaysana ay uga hawlgalaan ciidankaasi. taa taliyaha bileyskan ka codsanayna inuu ciidanka noo soo kordhiyo gaadiidka ka hawlgalayana ay noo soo kordhiyaan
aad baan uga codsanaynaa hore waxaynu ogeyn maalintii weyto inaanu ku gubnay sharaab xagga Itoobiya naga soo galay isaguna dhacay isa sidoo kale khamrigan imka meesha yaala waxa weeyaan waxa raacsan dheedkiisa waa dhacay wuxuu dhacay bishii 8 2024 ku dhacay dheedkiisa waxa la geeyay marka dalkeenii sin horeba u sheegnay wax dhacay in baa la doonanayaa khamrigana de ilaahay subhanahu wa ta'ala way noo sheegay inuu khamriga de xaraan yahay isagoo ka sii daran yahay markuu dhacay ka sii daran waxaan leenahay dalkeena iyo deegaankeena inuu ilaalino oo inuu ka ilaalino mukhadaraadka la soo gelinayo waa muhiim bulshadana waxaan ka codsanayaa inaan la shaqeyno qacan siino bilayska oo meel kasta aad wax ku aragtaan ama aad ka shakidaan inaad soo gudbisaan bilayska aad soo gudbisaan inta waxaan joognaa 17 bishii Ramadaan oo ku aadan bisha 3 17keedii maxkamadda gobolka Hawd oo xukun ka soo saartay khamriga tiradiisu gaadhayso 293 dhalo waxaan u mahad celinayaa ciidanka booliiska ee soo qabtay khamrigan gacanta ku soo dhigay ee heeganka ugu jiray inay ilaaliyaan xuduudaha Soomaaliland ka ilaashaan muqaadaraadka ka ilaashaan amni darrada ka ilaashaan kontrabanka aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa iyo ciidanka la dagaalanka muqaadaraadka ee sida gaarka ah iyaguna u shaqeynaya heeganka waxaan u mahad celinayaa xeeraarinta gobolka oo si runtii nin sharci yaqaan garanaya waajibaadkiisa sharci horgeeyay maxkamadda waxaan u mahad celinayaa sidoo kale maxkamadda gobolka garsoore maxkamadda gobolka Xasan Gahayr oo isaguna xukun ka soo saaray khamrigu inuu xaraan yahay quraankeena cadeeyay ilaahay baana inoo sheegay inuu xaraan yahay isagoo xaraanaba haddana waxa lagu daray inuu expire yahay waa xaraantii oo nijaas lagu dalacay weey waxaan leenahay dadka gobolka Hawd dhammaantiin aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa heegan bay u yihiin si runtii daraad oo imika bisha 14keedii 13keedii waxaan gubnay oo burburinay 4440 xabo oo sharaab dhacay maanta inta khamriga baan dul taaganahay waxaan leenahay gobolka Hawd waa qalbiga Soomaaliland weey wuxuu ku beegan yahay ninkii aan garanayn iyo ninkii garanayooba jaho wax waliba inaga soo gali karaan hargeysa bad bay noqonaysaa khamri bay noqonaysaa hadii gobolka Hawd ragga jooga iyo ciidanka jooga iyo mas'uuliyiinta joogta ay qaranka u soo jeedi waayeen habeen iyo maalinba hargeysa bunabeed noqonaysaa oo caasimadii marka waxaan leeyahay waan soo jeedinayaa oo taliya booliiska oo si runtii nin cusub oo waliba soo jeeda oo maxay tahay Cabdi Dheere oo aan horena ugu tagay oo aan kala hadlay amniga iyo xuduudaha si runtii taliya waad aragtaa ciidanka jooga gobolka Hawd waa ciidan darban oo difaacaya qarannimadii Soomaaliland ilaalinayana xuduudii in aad soo xoojiso ciidan ahaan gaadiid ahaan intaba oo ay noqdaan dhammaantood inay xuduudii wada ilaalin karaan waayo hararahu naga dhaafaya marka intan dhir hoosteed la soo dhigay intii gawaadhidu sidayna hareerahay maraysa waa la garan karaa marka waxaan leeyahay gobolkan feejignaan badan buu u baahan yahay annagu intii taalkeega waxba la hadhimayno xukuumadda dhaxana waxaan ka codsanaynaa iyo wasiirka amniga iyo taliya booliiska inay nala xoojiyaan haddii alla idinka dhigo Cabdiraxmaan Samariye xarunta gobolka Hawd ee Balluugubadle